war degdeg daawadayaal ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saaka waxay u hoobteen ama ku hoob war degdeg daawadayaal ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa waxa ay saakay weerareen deegaano iyo tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe nala daawada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo gudaha u galaya fariisimadii kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ay saaka ay ku weerareen Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar saad aragteenba waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo koox ka tirsan argagixisada Al-Shabaab gudaha ugu galay fariisimo iyo tuulooyin ay kaga dhuumaaleysanayeen gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ballaaran waxa ay ka sameeyeen tuulooyin deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidamadu howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan deegaanka ama degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa tuulooyin hoostaga Galcad waxa ay ka sameeyeen howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo kooxda nabadiidka ah Al-Shabaab saad aragteen ciidamadu waxa ay ku guuleysteen inay gudaha u galaan ama ay ku durduriyaan difaaciyo kooxda argagixisada ah Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud ciidanka ayaa sidoo kale waxa ay ka duldhaceen koox ka tirsan argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo doonayay inay soo abaabulaan weerar ay ku soo qaadayaan tuulooyin deegaano ciidamada ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saakay iyaga oo ka warhaya xogta kooxda isku arursanaysa deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud waxa ay duulaano culus ay kaga qaadeen fariisimadii ay ku lahayn halkaasi tuulooyin hoostaga deegaanka Coosweyne iyo Galcad ay ciidamadu howlgallo ay ka sameeyeen waxayna ciidamadu ku guuleysteen inay qaarijiyaan 35 dhagar qabo oo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah Al-Shabaab sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa weerar gaadma ah oo dhowr jaha waxa ay ku qaadeen tuulooyin hoostaga deegaanka Galcad iyadoo ciidamadu ay ku guuleysteen inay ku durduriyaan difaaci argagixisadu halkaasi ay ku lahaayeen weerarka oo ahaa mid qorsheysan oo ciidamadu ku qaadeen dhowr fariisin oo ay ku sugnaayeen kooxda nabadiidka ah ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay gudaha u galeen fariisimo dhowr ah oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan kooxda argagixisada ah Al-Shabaab mid kamid ah saraakiisha howlgalka hogaaminaya oo xiriir la sameeyay ayaa wuxuu inoo sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhowr jaha ay ka weerareen deegaanka Galcad waxayna ciidamadu sidoo kale ay ku guuleysteen inay hub iyo saanada military ay ka soo furtaan kooxda argagixisada ah Al-Shabaab weerarkan oo ahaa weerar qorsheysan oo ciidamadu ku qaadeen dhowr fariisin oo nabadiidku halkaasi ay ku lahaayeen ayaa waxay ciidamadu sidoo kale ay ku guuleysteen inay qaarijiyaan horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay hub iyo saanada military aad u tiro badan ay ka soo furteen kooxdii deegaanka Galcad ee tuulooyinka hoos yimaada halkaasi ay ciidamadu kaga duuleen saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay noo xaqiijiyeen in dagaalku uu barbar socday duqeymo dhanka cirka ah oo lagu sameeyay fariisimo ama laga sameeyay fariisimo kooxda nabadiidka ah ee ku lahayn halkaasi waxayna sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay guud ahaanba ay la wareegeen tuulooyinkii dagaalka ay ku qaadeen haatan idin la hadlayay ciidamadu waxa ay gaafureegayaan deegaano iyo tuulooyin dhaca deegaanka Galcad iyagoo halkaasi ciidamadu ka wada howlgallo ballaaran ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay soo furteen koox dhalinyaro ah oo nabadiidka argagixisada Al-Shabaab ay ku xirxireen deegaanka Galcad waxayna ciidamadu sidoo kale ay gacanta ku soo dhigeen dokumentiyo ay lahaayeen niman ajnabi ah oo ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab xoogga dagaalka oo ka dhacay tuulooyin hoostaga deegaanka Coosweyne ayaa waxay ciidamadu ay ku guuleysteen inay gudaha u galaan guud ahaan goobihii saaka ee weerareen aroornimadan ama xilligan ay idin la hadlayo dagaalkii ugu cuslaa ayaa hareerahaasi ka soconaya waxayna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay guud ahaanba la wareegeen goobihii istiraatiijiga ahaa ay ku duuleen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo si weyn u hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxay sidoo kale ay ka hortageen gawaari qaraxyo ah oo kooxda nabadiidka ah Al-Shabaab ay doonayeen inay ku weeraraan fariisimo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen tuulooyin hoostaga deegaanka Galcad wararka ayaa waxay sidaas wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in ciidamadu sidoo kale ay ku guuleysteen inay halkaasi ay ku durduriyaan ilaa 32 difaac oo nabadiidku ay ku lahayn deegaanadaasi saraakiisha inuu la xiriirna ayaa sidoo kale waxay inay xaqiijiyeen in dagaalku uu ahaa mid xoogan ilaa haatan socdo ciidamadu ay ku sii siqayaan goobo hor leh oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab
ciidanka ayaa kaabiga ku haya deegaano dhowr ah khaasatan tuulooyin hoostaga degmada Ceelbuur iyadoona halkaasi ciidamadu ay ku guuleysteen inay ka sameeyaan howlgallo baaritaano ah deegaanka Cusweyne Galcad iyo tuulooyin ku dhow ayay ciidamadu howlgallada ay ka wadaan saad aragteen ciidamadu waxa ay rasaas iyo hugunka madaaficda ay la dhiceen koox ka tirsan argixisada al-shabaab kuwaas oo ku dhuumaalaysanaya hoodka deegaanada Cusweyne hoos yimaada sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku durduriyeen guud ahaanba goobihii nabadgelyadu ay ku sugnaayeen saraakiisha oo inoo waranta ayaa waxay xaqiijiyeen in dagaalku haatan uu socdo ciidamaduna ay ku gacan sareeyaan iyagoona sheegay in guud ahaanba la duqeeyay goobihii nabadgelyadu ay ku sugnaayeen xalay waxaa duqeymo xoogan laga sameeyay deegaano hoostaga gobolka Galgaduud qaasatan goobaha hadda ciidamadu howlgallada ay ka wadaan oo ah deegaano hoostaga deegaanka Galcad sidoo kale deegaano hoostaga Cusweyne duqeymo xoogan ay sameeyeen diyaaradaha dagaalka ayaa si dadka deegaankaasi degan ay noo sheegeen waxa ay xalay maqlayeen hugunka gantaalada waaweyn ee lagu garaacayo fariisimada kooxda nabadgelyada ee al-shabaab ay ku leeyihiin tuulooyin hoostaga deegaanka Cusweyne ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay si istiraatiijiyeysan ay ku weerareen dhowr jiho oo deegaanka Cusweyne ay kaga sugnaayeen kooxda argagixisada ee al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odowa Yusuf Raagi oo xogta weerarkan iyo amarkan bixiyay ayaa wuxuu sidoo kale isna ku sugan yahay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuuna ciidamadu ku dhiirigeliyay inay ku dhaqaaqaan goob kasta oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan cadowga argagixisada ee al-shabaab jananka oo u khudbeynayay ciidamo aad u tiro badan oo xoogga dalka ah ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in goob kasta ay joogaan nabadgelyada al-shabaab in lagu dhaqaaqo isagoona xusay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay u diyaarsan yihiin sidii goobahaasi looga xoreyn lahaa kooxda argagixisada ee al-shabaab General Odowa Yusuf Raagi ayaa sidoo kale cutubyo aad u tiro badan oo ka tirsan xoogga dalka waxa uu kula hadlay deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Galgaduud waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed laga dulqaado kooxdan sharwadayaasha ah ee dhibaatooyinka kala duwan u geysta shacabka Soomaaliyeed jananka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay si wada jir ah uga hortagaan kooxda nabadgelyada ee al-shabaab ayna ku taageeraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed halganka adag ay kula jiraan sifaynta kooxda deegaanka Cusweyne iyo tuulooyin ku dhow ee ciidamada howlgallada ay ka wadaan ayaa sidoo kale ciidamadu waxa ay ku guuleysteen inay qarxiyaan miinooyin dhowr ah oo nabadgelyadu halkaasi ay ku duugeen howlgallada oo saaka ka duwanaa howlgalladii hore ayay ciidamadu waxay la wareegeen deegaano horle oo ka tirsan gobolka Galgaduud qaasatan tuulooyin hoostaga deegaanka Galcad iyo Cusweyne waxayna sidoo kale ciidamadu ay ku guuleysteen in dhowr jaha ay ka weeraraan tuulooyin hoos yimaada degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay dhowr jaha ay ka weerareen tuulooyin hoostaga degmada Wabxo iyadoona si xawliya howlgallada halkaasi uga soconayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu amar degdeg ku bixiyay in meel kasta ay ku sugan yihiin kooxaha argagixisada ee al-shabaab in lagu dhaqaaqo isagoona sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed looga fadhiyo inta sanadkan uu curanin in sida ugu dhaqsiyaha badan ee dhowr ay gacanta ku dhigaan goobaha lagu tuhunsan yahay inay joogaan argagixisada al-shabaab xoogga dalka Soomaaliyeed iyaga oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa waxa ay howlgallo xoogan ay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe waxayna sidoo kale ciidamadu ay ku guuleysteen in goobo dhowr ah ay ka saaraan argagixisada al-shabaab warka haatan aan helina ayaa waxay sheegayaan in duqeymo xoogan oo dhanka cirka ah ay si weyn uga socdaan deegaano hoostaga deegaanka Galcad iyo tuulooyin hoos yimaada Cusweyne waxaana halkaas lagu bartilmaameysanayaa firxadka kooxda nabadgelyada ee al-shabaab sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in duqeymihii saaka ka dhacay dagaalkii cuslaa in lagu beegsaday horjoogayaal ka tirsan nabadgelyada al-shabaab halkaas oo jab xoogan lagu gaarsiiyay kooxda ciidanka oo si weyn uga feejigan dhagaraha kala duwan ee cadowga ayaa sidoo kale waxay cagta mariyeen guud ahaan fariisimadii ciidamadu ama fariisimadii cadowga ay kaga dhuumaleysan jireen deegaano hoostaga Cusweyne dagaalku haatan si weyn uga socda deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud qaasatan tuulooyin hoostaga Cusweyne ayay ciidamadu waxa ay ku guuleysteen inay deegaanadaasi iyo tuulooyin ku dhow gacanta ay ku dhigaan wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhowr jaha ay ka weerareen deegaanka Cusweyne waxayna ciidamadu saacadaha soo socda laga yaabaa in halkaasi gacanta ay ku dhigaan howlgallada oo si wanaagsan loo soo qorsheeyay ayay ciidamadu waxa ay ka sameeyeen tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud haddaynu aadno deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa si xawli uga soconaya
abaabulka howlgalka dhana kooxda argagixisada ee al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka dhulka ayaa si wada jir howlgalkan u hogaaminaya waxayna ku sugan yihiin deegaanada tuulooyin dhaca gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale abaabulka ugu weyn waxa ay ka wadaan deegaanada tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe taliyaha ciidanka dhulka oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wuxuu u qudbeeyay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka isagoona sheegay in loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamadu ay ku dhaqaaqaan goob kasta oo lagu tuhunsan yahay inay joogaan argagixisada al-shabaab taliyaha oo ku sugan deegaan kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe aan haatan magaciisa sheegin deegaankaasi ayaa waxa ay wararka inoo xaqiijinayaan inuu cutubyo gaaraya ilaa dhowr kun oo ciidan ah ugu qudbeeyay halkaasi waxaanu ku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu faafo deegaan kasta ay ku sugan yihiin canaasirta argagixisada ee al-shabaab taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu xusay in Shabeellaha Dhexe guud ahaan sanadkan inta la gaarin laga safeyn doono kooxaha argagixisada ee al-shabaab shacabka Soomaaliyeedna ay maqli doonaan guulo ay ku farxaan dagaalka oo saaka si wada jir ah ama howlgallada oo saaka si wada jir ah uga bilowday deegaanada tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe ay ciidamadu waxay ku guuleysteen inay guud ahaan baycagta mariyaan fariisamadii kooxaha argagixisada ee al-shabaab ay kaga sugnaayeen gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud saraakiisha ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay guud ahaanba ay saakay gaafureegayaan deegaanadii howlgallada ay ka sameeyeen oo ah Galcad iyo Coosweyne waxayna ciidamadu sidoo kale ay ku guuleysteen inay halkaasi ay ku durduriyaan maxkamad beenaadyo nabadiidku halkaasi ay ku lahaayeen sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhowr boqol oo neef oo geel ah waxa ay ka soo furteen argagixisada al-shabaab oo si baad ah uga aruuriyay shacabka deegaan gobolka Galgaduud waxayna ciidamadu ay ku guuleysteen in dhowrkaasi neef oo geel dadkii lahaa ay u celiyaan saraakiisha oo aan la xiriirin ayaa sidoo kale waxay inoo xaqiijiyeen in haatanba howlgallada uu socdo ay socdaan ciidamaduna ay ku siisiqayaan goobo hor leh oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan kooxda argagixisada ee al-shabaab duqeymo xoogan ayaa sidoo kale iyo howlgallo xoogan ayaa waxay si wada jir ah uga soconayaan labada gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyadoona halkaasi ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay deegaano dhowr ah ay ka sifeeyeen kooxda argagixisada al-shabaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee saaka dhowrka jaha ka weeraray deegaanka Galcad iyo Coosweyne ayaa sidoo kale waxa ay ku guuleysteen inay guud ahaanba deegaanadaasi ay ka sifeeyaan kooxda argagixisada ee al-shabaab duqeymihii ugu xooganaa ayaa haatan soconaya waxayna ciidamadu kaabigay ku sii hayaan tuulooyin hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud daawadayaal wixii ku soo kordha howlgalladan xoogga badan ee saaka ka bilowday deegaanada tuulooyin dhaca gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud channelkeena aad ka daawan doontaan haddii channelkeenu kugu cusub yahay fadlan subscribe inoo saar waa mahadsantiin